السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابك وحرن جنال كيغا ماجد فاروق وادكم هاسنتين داوشة الفيديو دا داواتان كسو دوادا قصدي نبي الله إبراهيم عليه السلام قيبت هذه كوبات سيدا اللوين سبحانه وتعالى قرآن كيساكو عدين يو كعبدا وحا لسي نبي الله إبراهيم يويل كيسا نبي الله إسماعيل عليه السلام قصدنا وحي أدعى سيدان نبي الله إبراهيم أصل كيسة وحو كسو جيدار كان لو يقانو عراق ومقالة ير أو صارن دانتا قلبات وبيغ فرات أو مقعيدو ليرادو آرا ومقالو حدا كو آدن كفا أكتادا وحدا لوحان لغا سو فاقي حدا أو لغا هلاي ورر فافاسان أو كسابسنا مقالة دان إيو قويسك إبراهيم عليه السلام إيو حالة الدينات intaba Ibrahim alayhi salam magaaladan waa ka hijrooday dhinaca magaalada kale ee Haran kadib dhulkan Falastiin halkaas oo uu ku dhigtay saldhig weyn ee dacwadiisa hadaba Ibrahim alayhi salam wuxuu u bixi jiray safaro dacwo oo ku mari jiray dhulka Falastiin oo dhan iyo meelo kala duwan kamid ah dunida safaradan mid kamid ah ayuu Ibrahim alayhi salam ku tagay dhulka Masar halkaas oo uu fircoonkii Masar ka talinayay uu degay shirqool ka dhan ah Ibrahim alayhi salam iyo zawjadiisa sharafta badneed ee Sara shirqoolkan oo ahaa isku dayay fircoonkani isku dayay kufsi uu la damcay Sara oo ahayd midii la siiyay quruxdii adduunka nuskeeda alla shirqoolkan waa ka badbaadiyay ayadoo fircoon uu ka arkay Sara mucjizo weyn oo uu darteeda aqoonsaday xiriirka weyn ay Sara la leedahay Alle weyne subhanahu wa ta'ala uuna qirtay fadligeeda iyo sharafteeda isla markaani uu siiyay gabar shaqaale ah oo magaceeda la dhaho Haajira Sarana ay dhankeeda u guurisay gabadhii ninkeeda ee nabiga Alle Ibrahim alayhi salam إبراهيم وحو كسو لابتay فلسطين أساقو الله كسيي هاجر إسماعيل عليه السلام لصو قيبت لواد قصة إن شاء الله هدو الله يدمها وينك كلا سبتها